بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. إلهي سبحانه وتعالى kitaabkiisa xakiimka waxa uu ku ammaanay dumar fara badan oo saalixaad noqday, dumar fara badan oo door fiican ka qaatay adduunka intay joogeen, dumar fara badan oo ilaahay subxaana wa tacaala ku manaystay inay noqdaan halyeeyayaal lagu daydo, xidigyo dumarka damba ay markaa ku daydaan. walaalayaal, waxaan rabnaa inaan wax ka tilmaano kunii saalixa, inan fiican noqo, gabar hagaagsan ahaw, naa qiimo leh noqo. kunii saalixa, saalixad baa khayr badan. allah kitaabka ku ammaanay: faasaalixaatu qaanitaatun xaafidaatun lilgaybi bima xafida allah. dumar baa ilaahay adduunka ku xafidaa subxaana wa tacaala. ismadeedaa la ilaaliyaa, sharafteedaa la ilaaliyaa, qiimaheedaa la ilaaliyaa. ilaahay baa kor ka soo ilaaliya subxaanahu wa tacaala bimaa xafida allah. tu aan la xafidin waa ima mutaysanin, tu aan la xafidin oo shaydaanka u nugul, oo faasiqa u nugul, oo midka ciyaal suuqa u nugul, oo si allaala sida doonta la yeesho. ilaahay subxaanahu wa tacaala idinka badbaadiye. kunii saalixa, walal saalixad noqo, gabar fiican noqo, gabar ilaahay agtiisa ka ammaanan oo sharaf leh oo cizi leh noqo. see ku noqon kartaa? may arooska ka ciyaartida? maya. see ku noqon kartaa saalixad? jirkaagoo qaawan inaad banaanka martaa? la. seed ku noqon kartaa saalixad? marka lagu guursado inaad buuq iyo dagaal iyo qaylo aad bilowdaa? maya. seed ku noqon kartaa saalixad? walaal, waa inaad ku dayataa oo aad fiirisaa dumarkuu ilaahay ammaanay subxaanahu wa tacaala. waa inaad ogaataa mar walba oo qudwo aad ka dhigato oo aad ku dayato kitaabka alle waxa uu tilmaamayo aad raacdo, sunnada nebiga waxay tilmaamaysa aad ku socoto, waxay kaa reebeen aad ka harto. saalixad baa tahay, gabar fiican oo qiimo leh baa tahay. faasaalixaat waa dumar saalixaad ah, waa dumar fiican, waa qaanitaad allay ateecaan subxaana wa tacaala. haddii la guursadana allah iyo ninkeeda way ateecaan. faasaalixaatu qaanitaatun xaafidaat, waa kuwa xifdin badan. maxay xifdiyaan? lilgayb. mufasiriintu waxay dhahaan lilgayb waxaa loola jeedaa xaajigu markuu maqan yahay way is ilaalinaysaa, nafteeday ilaalin, dhismadeeday ilaalin, gurigiisay ilaalin, ilmihiisay ilaalinaysaa. aaway saalixaadkii noocaas ahaa? aawo walaalayaal, aaway gabdhahaasaa la raadinayaa maanta adduunka laga la-yahay ilaa in yar maahane. dhammaan waxaa loo batay inaan saalixiin la noqon. qofka saalix aan noqon qaasid buu noqdaa. wa ama alqaasituuna fakanuu lijahannama xataba. qofkii noqdo qaasidna oo raaci waaya oo saalixaad noqon weysana qoryihii dhex jahannamo waaya buu dhahay ilah subxaanahu wa tacaala. walaalayaal, waxaan baadigoob ugu jirnaa dumar saalixaad ah. waxaan rabnaa inaan helno dumar saalixaad ah oo hadday qadaanna alxamdu dhaha, hadday quutaanna alxamdu dhaha. waxaan raadinaynaa dumar mar allaala marka allahu akbar ay maqlaan kushiinka ka soo bixi salliga ku istaaga. saalixad waaye. waxaan raadinaynaa dumar hidaacaddu markay muusig soo gasho demiya, mar allaala markuu qur-aan soo galana shida. waxaan raadinaynaa saalixad canuga yariiska ay dhashay maqribka markay dukato ay dhahda kaale kutubka soo qaadee meeshaan fadhiiso. laakiin assalaamu calaykum maqribka maxaa ka dambeeya? musalsal.
maxaa ka dambeeya filin hindi, maxaa ka dambeeya telefoon dad lagu xanto, maxaa ka dambeeya telefoon kuwa aan la qabinna ku hasaaba ilaa cishahu dhaafo, salaada subaxna soo dhawaat. heerkaasaa maanta la taagan yahay. gabdho ilaahay ka cabsada, gabdho saalixaad noo noqda, gabdho fiican noo noqda, aflagaadada joojiya, xijaabka xun iska dhaafa, rabbi u soo noqda, xudfaad noqda, diinta alla kuwa xafida noqda. saalixad baad noqonaysaa, saalixaad baa khayr iyo wanaag ku jira walaalayaal. ilaahay subxaanahu wa tacaala jannada yuu geliyaa ina aladiina aamanuu wa camilu saalixaat. haddana camal saalix ah oo fiican oo wanaagsan qabta oo sameeya, saasuu ilaah leeyahay subxaanahu wa tacaala. goormee noogu dambaysay gabar saalixadoon aragno? ilaa 2 iyo 3 adduunka ku soo hartay maane. goormee noogu soo dambaysa hooyo wanaagsan, ahlu diin ah, ahlu khayr ah, ahlu tawxiid ah, ahlu xijaab ah oo aan aragno? 5 iyo 7 adduunka ku soo hartay maahane. dib aan isku noqono, gadaal saalixnimadii aan u soo celino walaalayaal. nabigaa lala hadlay sala allahu calayhi wasalam, waxaa la faray dumarkiisa inuu la hadlo. yaa ayuha nabiyu, nebigaanow, rasuulkan sharafta lahow, midkan ilaahay dirsadayow, yaa ayuha nabiyu qul liaswaajika, xaasaskaaga ku dheh, in kuntunna turidna alxayaata addunyaa wa ziinataha fatacaalay. adduunya doon maa tihiin? saa ku dheh. war haddaad tihiin dad adduunya doon ah, waayo qof adduunya doon ah saalix dhab ah ma noqon karo. qof adduunya doon ah diinta alla dhabnimo uguma dhaqmi karo. qof adduunya doon ah xaalkiisu sida dumarkeenay maanta yihiin ma noqdo. see noqdaa? sidii gabdhaha saxaabiyaadka oo kale. suu noqdaa sidii ilaah subxaanahu wa tacaala uu u ammaanay kuna sifeeyey dumarkii qiimaha lahaa. rasuulkii allow ku dheh xaasaskaaga, in kuntunna turidna alxayaata addunyaa, nolol doon haddaad tihiin, adduunyo haddaad doonaysaan, iyo wasiinataha, dhalaalkeeda, quruxda adduunka, kaalay waa laydin talinaaye, fatacaalayna, kaalay. rasuulka sala allahu calayhi wasalam qof allaala qofka jecel, diinta ilaahay jecel, adduunkuu ka leexdaa, adduunkuu ka jeestaa, adduunkuu dhinac ka maraa. ma aragno dumar ku dagaalama sawjkayga, salaaduu ka tagaa, 2 iyo 3 maahane. ma aragno dumar ku dagaalamaya amase ilaah subxaanahu wa tacaala dartii ugu dacwoonaya, xalan salaada kicin waayey, xalan salaada subax u kicin waayey. saalixaad baa la rabaa. gabar saalixa saa samaysa, gabar ilaahay taqaanaa xaaladaa la timaada walaalayaal. laakiin waa aragnaa ballan uu iga qaado iiga baxay. maxaa waaye ballantaan iri? faraantii uu ii ballan qaado ii geli waay. kii aakhiro aaway saalixnimada walaalayaal. fartaadaan haddaan wax la gelinin tasbiixdaa ku filan. subxaana allah aad laabto, walxamdu lilah aad laabto, adi waa kuu barako, guriga waa u barako, odaygu waa u barako, ciyaalku waa u barako. iska daa dariskay barako u tahay walaalayaal. faraanti waa ku jirta adi, waxaa ka hadlaysa waa faraanta. nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu arkay nin faraanti dahaba ugu jiro, waa istaagay, intuu ka qabtuu ka siibuu ka tuuray sala allahu calayhi wasalam. muxuu samaynaa? wuxuu u diidan yahay dhuxul naara inay ku jirto fartiisa. markuu ka tuuray cabbaar la fadhiyaa rasuulku baxay sala allahu calayhi wasalam. saxaabadii baa waxay dhaheen, war maad qaadatid faraatigaaga aad ku intifaacdide. xataa haddii gashashada ragga loo diiday, suuqaad geyn kartaa, waad iibin kartaa, lacagta ka soo baxaad cuni kartaa, amaad sadaqaysan kartaa. intifaac ku samayso. wallaahi inaanan qaadanayn mar hadduu rasuulku tuuray buu dhahay sala allahu calayhi wasalam. waa saalix waaye. maxaa kaa galay dahabkay ku leedaha maanta? walaa riimaa ka soo gata, maxaa kaaga jiro? saamaa yeeshe, maxaa kaaga galay? maxaa kaa galay? ma socon doonto. maalin aan maanta ahayn baa jiri doonta walaalayaal. qof saalix ah ma ahee qof kale aan jana ilaahay gelin subxaanahu wa tacaala. maalin baa jiri doonta gabar saalixad ah maahane aan qof kale jannada ilaahay ku tallaabsan doonin. maanta maxaa kaa galada intaan iska joojino? ilaahay subxaanahu wa tacaala maa yiri samcan wa taacan. dadka iimaanka leh maxaa lagu yaqaanaa? idaa ducuu ila allahi wa rasuulih
liyaxkuma baynahum an yaquuluu samicnaa wa atacna. ilaahu hadalkiisa waa maqalnay, ilaahay hadalkiisa waa ateecnay. muflixiin waa liibaanin buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala. kaalaya fatacaalayna maxaa loo samaynayaa? umatickunna waa lidin mutca siinayaa. mutcada maxaa loola jeedaa? waa mutcatu talaaq. nebi moxamed waa idin furayaa sala allahu calayhi wasalam. nebi moxamed waa idin sii daynayaa sala allahu calayhi wasalam. waxay yidhaahdeen aayaddu waxay ku soo degtay mar allaala markii inta fatuuxaad la helay ay muslimiintu waxoogaa u kala furantay, yaa dumarkii nebiga waxay dhaheen haye alaabtan laga bedelo, daaha hala bedelo. waa kuwa maanta jooga. kaa saa ha la yeelo, inta saa ha laga bixiyo. daahii usbuucii iyo ciiddii hore laygu arkay, ma raba in ciiddan laygu arko. muxuu dhiba haddii lagugu arko? waxba ma dhehaysid ciiddii hore cibaadadayda meeshay joogtay ma raba in laygu arkee inaan ka badiyaan rabaa. wax badana naga qaldan, wax badan baa si naga ah. war go' waayo kan waa derbi wax la saaray. derbi aad wax saartay janno laguma galo. dhul aad qurquxisay wax laguma galo. maxaa janno alla lagu galaa? waxaa janno ilaahay lagu galaa inaad saalixad noqoto, inaad gabar qiimo badan oo sharaf leh oo diinta alla ku sharafowday inaad markaa ahaato. taasaa qiimo ku heli kartaa adduun iyo aakhiro. sharaf iyo wanaag kaasaad ku gaari kartaa. wallaahi waxaa taariikhda markaad akhriso dadkii hore salafkaad ka helaysaa gabdho inta xijaabka habeenkii dhaqdaan maalintiina soo xirta. habeenkii way dhaqanaysaa, miday ku bedelata ma haysato. nin amiir ahaa ka sugnaatay xaalad noocaas ah. raggii fiicfiicnaabaasaa ahaa, raggii sharafta labaasaa ahaa. gabar baa maalin loo tago waxaa la yidhi walaalay xijaab baan aruurinaynaa. gabdho dhibaataysanoo xijaab aan haysanin ayaa la soo sheegaye bal xijaabahaada mid ka keen dhiibaa bay tiri. mid muxaadaraan ku tagaa, mid meelaha waxaan ku tagaa, mid waa ku tukadaa, mid aroosyada u qaataa, mid saan kee bixiyaa ii sheega bal kay bixinaysaa gabadha. macnaha waxay u malaysaaba xaaladda noocaas ah ee xijaabaha ay saa u tirinayso inays waxba wax ka baxba inuusan markaa jirin. mid salaaday ku dukataa, mid jikaday ku gashaa, mid markay marti u timaada xirataa, mid markay aroos aadaysi qaadataa. alaa iyo 7 tirisa magacada qayb ka mid a iga maqan. ilaahay subxaanahu wa tacaala saa nama farin. waxaa nala faray oo nala amray saalixad in qofka muslimka uu noqdo. fatacaalayna umatickunna mutcatu talaaq waaye. wa usarixkunnana waa laydin dirayaa waaye saraaxan jamiila. gabar layga bedelo derbiga dhehaysa marada saaran nebi moxamed maba na noolaan kartaba sala allahu calayh wasalam. yaa la noolaan karaa gabar baahan? yaa la noolaan karaa mid hal xijaab wadata? yaa la noolaan karaa mid ilaahay subxaanahu wa tacaala habeenkii u kacda? yaa la noolaan karaa mid baahi haysa? waana dhacday xaqiiqdii 9 guri ee nebiga sala allahu calayh wasalam markuu akhbaar u diray uu yidhi marti baahan baa joogta ee wax soo dhiiba. mid ayaa la waayey gurigeeda canjeero laga helo, laxoox canjeero aa laga waayey. mid kasta maxay tiri maa cindii hee ila almaa, biya guriga yaala, ashuunkaa biyo ku jiraa. waa saalixad. ma cabaadayso, ma qaylinayso, ma aflagaa doonayso, la maqli maayo dhawaaqi iyo waxeeda kale. maalintee waa xishana diinta alle u adeegsataa. gabadhaas aan tilmaamayna mid ka mid ah ribaa lagu qalay gurigeeda. gabar jaariyad baa joogta, way sooman tahay. ridii inta la qalay yaa xibin loo googooyey, waa la bixbixiyey. jaariyaddii baa tiri hooyo gabal yaranku afra ii reer baryaan hilib ma cunine. hor maxay xasuusaysaa? maxaad ii soo xusuusin weysay intaanan bixin? kuunii saalixad noqda. war dad fiican oo hagaagsan noqda. war qayladiina yaan la maqlin. war mtaqaana cabaadkiina yaan la maqlin. war dagaalkiina yaan la maqlin. ha la maqlo wax allaala wixii khayr leh ee ummad farxad gelisa walaalayaal. wax dhagaha islaamku uu ku farxo muslimiinta, waxay malaa'igtu ku farxdo, wax ilaahay nooga abaalgudo subxaanahu wa tacaala. waxa ha la sameeyo. kullay camal waa qabanaysaa, waxna waa samaynaysaa, hadalna waad hadlaysaa. ama odayga ku dheh baastariya isii xoolahayga, ama dheh ilaahay ha ku wanaajiye wax xalaala noo soo raadi, wax unba afkaaga ka soo baxaye. wax khayr afkaaga ka soo bixi.
ولا يكونوا صالحين كونوا صالحين نقضة إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. هذا صالحين نقطان ددفع في عن أد نقطان إلهي ددك أوابين تأهوامد حريص سبحانه وتعالى. صالح لماذا ليس كما هلو والشرف إلهي بحي سبحانه وتعالى. قفكو دونوسا كما نستا قبر عرب دير لما سيو مد الدنيا جعل لما سيو مد إله سبحانه وتعالى كفرتي لما سيو يا إلهي سيا وحكمه قف الله لقفكو دونون إلهي سيا قفك وجعل يهي يا إلهي سيا سبحانه وتعالى. هدي الله كدورت ربي كجعلاضه ربي أكتيس خير إيواناك كو قريهي ألا أكتيس صالحات باتك النقونيسا صالح لماذا وحلا شاكتا معها وح إلهي سبحانه وتعالى كوهي بيواي ربي بالغبر يا سبحانه وتعالى صالح نمضو وناقا أي لاذا حتى هدات صالحات نقطة ولا أولاد أتكلمته أو أتكتكته يا حفظايا الله سبحانه وتعالى يو أصور ديريا أدو محفظو إلى لسا موسى إي خضر مركي سفر كقالين وحي أتغين قريبا ليري استضعما أهلها أهل كذي قود ويديستين فأبو أن يضيفوهما ولو ديدي موسى إي خضر إن لمرتقاضو ولو ديدي فأبو أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض وحي أركين قدر بدومي ربا قلكو أسي صعدا دميتان بو يهي فأقامه قدر بعد السي للستان كقدر أو لسا موسى كحماضي أو يري لو شئت لاتخذت عليه أجرا ما حد أقول استي صارتو ذي يروتي قد إنو ديديني ما أقول استي سا هداد دونت أجر بعد كقاضن كرتا أرد أو إحنا سوقات مركي لو فسيري موسى محلوغو فسيري وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالح. أبا في حنا ضلي خمر يعب مدلين قبيليست مدلين الكوليست مدلين جادعنا مدلين يا ضلي وكان أبوهما صالحا هو الصالحات هذا نقطه إددي وعنا إذا قشال لقوليه يا ضلي عنو قان إد فاضمدي ونكسنيت يا ضلي إد الزينبذي في عنيد إد متي قعمها كرا الله قاضى كرا لو سيديا haddaad tahay ayuu ta uruuriso aan salaad ilaahay tukanin haddaad tahay qof ilaahay ka furto xijaab la-aan bannaanka mari jirtay haddaad tahay islaam ummadda nafta u keento deriska laga ka ammaan waayeen yaa dhalay tii xumeedaa dhashay haraad in loo geli meela wanaajin maayo war ilmihiina wanaag u samaysta saalixnimada waalidka carruurtay anfacdaa saalixnimada hooyo iyo aabe ilmahay wax u tartaa saalixnimada qiimo lehee saalixaad noqda إلهي سبحانه وتعالى أكتسي قيمة وناك ليدين كوكسيو وصرحهن صراحا جميلا ما حصوهري انت وانت صالحين أهين على مدى اللي يقانو وإن كنتن تردنا الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عد للمحسنات منكن أجرا عظيما هذه سآتينكو إلهي الربا إن كنتن تردنا الله إلهي مدونيسان ها رسولك مرتان ها دارت آخر مرتان ها فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما انت صالله هلا دار آخرة إله راضيها شديسة هي النبي شفاعة عديسة صلى الله عليه وسلم وهدي قفك صالح والنقضة صالحا أهي ما حجابنا ما سعنيس صالحات بان أهي وحان أهي قبر صالحات ومدنا واردبا يلي مايو صالحات بان أهي قف كستنا وكن نعب يهي إلين قبل حاجرة لهليا أو فطر أهان لو هليا وعيتهاي وانا حجابا تهي وانا الإسلام نما أنس بالشيغان دكسيغا ويدغتا محاضرة صفك هوري قشا مساجد كرا تراويح للوغا مهر مرو لكن قف الله قفك أركا أكتدكم تكنايو كذا العذر صح تيكو قلبا تحت الله أكبر مركي هذه أركت وكفوري صلاة كذا الأبحث وايو صالحات معها والله والله هلا رجنا والله هلا إذن كنا والله إذن كهلا سببته محيط هاي سببته حيث أخلاق ملها أنشح ملها أسلوب مله لما هدلي كرتيت ومش يجي كرتيت صبوه في سعيد إلهي كعبصه كي هي أغنى عبد واسكمت كي إلهي كعبسها كعبسا لهم لما ربوا صالح وحلوية قناة الصالحات
diinta allana waa dhegaystaan, amarka ilaahayna waa qaataan, diinta ilaahayna way ku dhaqmaan. saasaa lagu yaqaanaa saalixade. saalixiin noqda, dad wan wanaagsan noqda, ilaahay ateeca, diintaa ku socda. haddii ilaah subxaana wa tacaala ciriiri keeno, meeshii looga baxo ilaahayna tusay subxaana wa tacaala. ma aha saalixad baa tahay, ahlu salaadaa tahay, ahlu xijaabaa tahay, waad dhargaysaa, gurigaa waxaad doontaa lagu siinayaa, meeshaad doontaad ka degaysaa, wax allala waxaad helaysaa. ma aha. nebi moxamed asagaa noogu saalixsanaa, calooshana dhagaxa ugu xirnaa sala allahu calayh wasalam min aljuuc, baahi daraaddeed. waa las imtixaama, waa las dhibayaa. 5 bir markaad xijaabka wadato, sida gabdhaha gabadh laga sheego la guursan waayo, waxay leeyihin bas ninkaas ma jirto. maxaa la rabaa marka? uma soo xijaabat, maxaa u xijaabatay in gur aad ku hesho? maya. ma waxaa u xijaabatay in xool lagugu siiyo? maya. ma waxaad u xijaabatay inay dadku ammaanaan? waa maya. ilaa yaqiin ay kaaga timaada ilaahay ku amray. waxa lagu siin doonana waa wax maa laa caynu ra'ad ah, walaa udunun samicad ah, walaa khatara calaa qalbi basharna ah. kaa waay waxaad u xijaabanayso. ma gaarin weli meeshaad higsanaysa hinkaagii, weli ma gaarin meeshii aad rabtay inaad shahaadada ka qaadato, waa weli. ee ma aha waa xijaabana. dhowr maalmood baan xijaabtay, waa in laysoo doontaa. dhowr maalmood baan xijaabtay, waa la iisoo doontay, waa inaan dhalaa, waa ina umu khalid ii bixiya, umu suhayb, umu salmaan, sida dumarka hadda joogo kale, gabdhaha magacyada fiicfiican baxsada. xaaladda noocaasoo kale ayaa ilaahay subxaana wa tacaala sharaf iyo qiimuu ku gaaraa. aad bay dumarka gobol ka mid ah ee saalixaadka ah ugu ammaanan yihiin. magacyada ayadoona weli ilmo helin iyo iska tamaninaysaa. maxay tamaninaysaa? mid waxay jeceshahay umu anas ibni malik in la dhaho, mid waxay jeceshahay umu khaalid, mid waxay jeceshahay umu suhayb, mid waxay jeceshahay umooyin fara badan. maalin maalmaha ka mid ah fasalan galay, ma aha arday oo mataqaanaa oo xijaabano ahludiin ah. gabar baa magaca sacdiye meekal bay tiri, tiilaad magaca shukru codweyn bay tiri, tii saddexaad baa adigana magaca. markaas waxay tiri waxaa la ii dhahaa, maxay tiri magac kale ayaduna sheegtay, hadiye meekal iyo shukru codweyn iyo waxay tiri hebel jeesta iyo wax noocaas oo kale tilmaameen. tii afraad waa ka aamusay, waay wax ka darnay sheegay. marka taa waxaa farqi u dhaxeeya. gabdhihii horena waad ujeedaa, xilliga caasin iyo gabdhaha caasi, bawrta caasi, lacagta caasi la mari jiray, wax walba saasay ahaayeen. hadda falilaahi alxamdu waxaan maraynaa gabar 12 jir ah, kutubkeeda fiiri, saa u fiiri meesha hore maxaa ku qoran? waxaa ku qoran nin halyey ah magaciisa inay canugeeda u baxsato. waa tacajub. umu zubayr baa ugu qornaa, zubayr ibnu cawaam. ma taqaaniin zubayr? wamaa adraaka maa zubayr. nin cajiib badan, ummad kasta xawaari bay lahayd. xawaarigayga waa zubayr buu dhahay nabiga sal alla alayh wasalam. haddaba maxay ku heshay? muxaadaraad badan bay dhegaysatay, cilmi bay faa'iidaysatay. saa darteed baa waxay diiday maykalkii iyo jeestadii iyo wixii hadda aan tilmaannay. markaasa waxay ka doorbiday magacyadan saxaabada qiimaha iyo wanaagga leh. walaalayaal, aad iyo aad aan u dadaalno, ilaahay aan ka cabsano, khayrkii taacada aan ku socono. mawduuceena saalixad noqo waa mawduuc cajiib badan. gabdhaha la qabo ama guursada, waxaan aad ula yaabanahay horta in allaale intaan niman la yeelaninna waa la akhlaaq fiican yahay. maalintii la guursadana qaylaa bilaabata. maxaa dhacayta? sidii hore maba la ahan. xijaabkii waa qafiifayaa, dugsigii waa qafiifayaa, xifdigii waa qafiifayaa. markaabaa la rabay oo iskuun aad dheeshood xasishay inay wax ziyaadaan, laakiin way nusqaamaan. ilaa hadda ma naqaan ciladu sida ay tahay iyo meeshii markaa ka jirto. ilaahay subxaana wa tacaala ha ka cabsadaano dumarka la qabo. naag waxaa u fiican, saalixad u ah, u khayr badan siduu rasuulku tilmaamay, midda markaad fiirisana ku farxad gelisa. mar allaala markaad amartana amarkaaga qaadata buu dhahay nebiga. mar allaala markaad maqan tahayna gurigaaga iyo nafteeda ilaalisa. waa saalixad. gabdhaha saalixaadkaasaa lagu yaqaanaa oo ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala nebigiisa markaad saa u eegto intay ayadu qosli adaa qoslahay. maantana wajitub baa jira, indhaa la isku bedelaa, afka la maroojiyaa, waxyaaba fara badan. waa laba isqabta. saalixad ma aha taa.
naa khayr badan ma aha. mar allaala markaad fiirisa buu dhahay nebiga way ku farxad gelinaysaa, waa muusoonaysaa, waad qoslaysaa. taasaa la rabaa. ta labaadna markaad amar siiso amarkay qaadataa. kan soo qabo waa yaalaa, kaa ii soo shub waa yaalaa, saabuunta musqusha iigey way taalaa. naga tag waana wareerisay xabadda haddaad u dirta maanta. ka labaad hal mar noo wada dir noo ay ku leedahay, hal mar noo wada dir. saalix aaway saalixnimada, war aaway wanaagga walaalayaal, war aaway sharaftii. waxa janno lagu gale naar lagu galo waa asaga. saa darteed waa qodobka labaadee markaad amar siisa amarka qaadata buu dhahay rasuulka. midda saddexaadna nafteeday ilaalisaa, gurigana way ilaalisaa. waa imaanayaa iidiina ma joogto, guriga yaa jooga ilmihii yaryarkaa la iskugu tegay. ka xafaayaddaa ku xumaatay, kan biyo isku daadiyey, ka sariirtu wax ku shubay. meeshay imaanaysaa ul bay qaadanaysaa dhammaan. maxaa garaacay? adaa garaacan, adigaa dhibaataysan, saalixad noqon weysay. saa darteed baa waxaa la leeyahay marka amarka la siiyo yay amarka markaa fulisaa. gabar walba oo shanteeda tukataa, oo soonkeeda soontaa, oo zawjkeeda ateecda, oo jirkeeda xafida, 8 janno albaabahooda mid allaala miday doontay ka gashaa buu dhahay rasuulka sallallahu alayhi wasallam. walaalayaal aad aan u dadaalno, ilaahay aan u soo noqono, khayrka wanaagana aan badsano, kuuni saalixa saalixiin aan noqono. wabillahi tawfiiq, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.